مسيحي وبدبادة ونلشة وإفتين كودة كلية ونلشة ولقية Allah says إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقهم من تراب ثم قال له كن فيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدي كواد إلهي سبحانه وتعالى يا ماد إسكاله رحمة نحريس كركيسات نو محمد صلى الله عليه وسلم ملك استعلم كجوكتان واني سلاني بعد السلام. الحمد لله ولا ليال ما أنتم حنجوكنا مقالة مقديشو ودن كصوماليا إيدو مركي كواد أن إيمانو ودن كصوماليا run ahaantii walaalayaal maanta maxay la joogaa alaqi Sheekh Ibrahim dhammaantiin wala aqoontaan ana ku barateen la doodisa oo la doodayo nimanka gaalada qaasatan nimanka cadaanka Sheekh Ibrahim yaa waay inta barnaamijka gudahaan u sii galin Sheekh Ibrahim yaa waaye video soo socda daawo. Allah says إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقهم من تراب ثم قال له كن فيكون. The likeness of Adam, the likeness of Jesus to Allah is the likeness of Adam. He said be and they were. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has created people in 4 different ways so that you as a man you can understand. The first person he created Adam without a woman, without a man. Second person Eve, the woman from a man without a woman, that is Eva, Hawa. The third person, me and you, Jesus Christ, from only a woman without a father. First, without a man, without a woman. Second, from only a man without a woman. Third, from only a woman, Jesus, without a father. Fourth, me and you. You know what our parents did and we're here. runtii maxaan filayaa inaad ka faa'iidaysatay maanta Sheekh Ibrahim ali jooga walaalayaal Soomaalida sidii loo aqaanaba Soomaalida boqolkiiba boqol waa dad muslimiin ah laakiin maanta arinta cajiibka ah maxaa waaye maxaa jira dad Soomaali ah oo ka tagay wadanka Soomaaliya oo tagay wadamaha Yurubka iyo Mareykanka markii xagga tageen iimaankooda ay bedeleen runtii ay qaateen diinta masiixiga daawo videoga soo socdo iyagoo qiraaya inay qaateen diinta masiixiga مسيحي وبدبادة ونلشة وإفتين كودة كلية ونلشة ولقية هلي كرتي ربي قوك عليه. وحنا هاي صومالي كريستيان مسيحي اسم مسيحي وحنا نقول لك لنا مرخاتي وفرا ورب جيجا إله النول وأنا إله أقول يا دكتور يا دكتور كتير. فرحت مكان مسيحة يدقنا شو ينور قبو waxaan ka helay dareenaa inaan saaranahay jid saxsan inaan dareensanahay inaan rabbi la hadlayo oo ii maqlayo walaalayaal waxaan filayaa inaad aragteen maanta waan ka hadli doonaa arrimaha soo bandhigeen ku saabsan waxa iyaga ay aaminsan yihiin koow maxaa jira Soomaalida qiratay inay yihiin dad gaala ah way badan yihiin laakiin waxa hadlo badana waa laba qof labada qof waa Shiine iyo Shania Gabo Shiine iyo Shania Gabo runtii point number 1 maxay qirteen inuu Nabi Ciise uu yahay rabbigooga Ilaahay subhanahu wa ta'ala Qur'aanku nagu sheegay qofku yahay Nabi Ciise alayhi salaam daawo videoga soo socdo اسم مسيحي وحنا نقول لك لنا مرخاتي وفرا ورب جيجا إله النول وأنا إله أقول يا دكتور يا دكتور كتير. Nabi Ciise yaa waay Nabi Ciise muxuu ka leeyahay kitaabka Bible-ka iyo kay aaminsan yihiin marka akhriso Bible-ka walaalayaal kitaabka Ayub 25 aayadda 4 aan akhrino kitaabka Bible-ka Ayub 25 aayadda number 4 aan dhageysano kitaabka Bible-ka muxuu ka leeyahay Nabi Ciise yaa waay Nabi Ciise Ayub 25 aayadda 4 waxay leedahay maanta aniga Allah waxaan idinku leeyahay nin
oo naag dhashay mise naag dumara nin ay dhashay ilaahay ma noqon karo kitaabka Bible-ka walaalayaal saa ugu maqasheenba muxuu qirayaa qof la dhalay mise qof dumar dhalay ma noqon karo rabbi nawciisa background-kiisa marka fiiriso mid taariikhdiisa fiiriso waa qof la dhalay ee dhashay Maryam marka Bible-ku muxuu qirnaa qof maadaam la dhalay ma noqon karo rabbi marka walaalayaal Bible-ka soo noo sheegaba nawciisa rabbi ma noqon karo laakiin nawciisa muxuu noqonayaa rasuul ilaahi soo diray oo u soo diray reer bani Israa'iil marka fiiriso kitaabka Bible-ka Mataayo 15 aayadeeda 24 nabi ciise wuxuu dhahay aniga meel kale la iima dirin waxa la ii diray Israa'iil nabi ciise muxuu qiranayaa aniga rabbi miihi rabbi aniga miihi laakiin maxaa ahay rasuul ilaahi soo diray reer bani Israa'iil marka Bible-ku uu cadeeyay muxuuna qirtay nabi ciise inuu yahay rasuul uu ilaahi soo diray sidoo kale aan dhageysano eedayaha kale ay aaminsan yihiin iyuka video soo socda daawo marka sharci ku noqoshadiisa 4:2 wuxuu leeyahay oo ereyga aan idinku amraayo waxa ku darina aan ku soo celiyo oo ereyga aan idinku amraayo waxba ha ku darina waxna ha ka dhimina wala fiirso waxna ha ku darina waxna ha ka dhimina si aad u dhowrtaan amarada rabbiga ilaahina oo aan idinku amraayo hadalada ilaah waa amarada ilaah waa guidance wax waa jihayn anagana jihaynaysa walaalayaal saa u aragteenba afar shay ay ka hadleen afartan shay ay ka hadleen labadan qof sheekha ayaa noo faafahin doona sheekh Ibrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين أما بعد توقوه رئيسا وحا aan ka hadlaya afar arimood ay ka hadleen Shiine Gabo iyo Shania Gabo horta waxay yiraahdeen kitaabka quduska lama bedelin kitaabkan quduska aad wiilasha iyo dadka Soomaali iyo aad u sheegaysaan kitaabkee waaye waxaad leedihiin kitaabka quduska kitaabkee waaye aniga weligii ma ba arkin kitaabka quduska masiixiyiinta ay akhristaan ma ba arkinba aniga waxaan aqaan the Holy Bible kana 114 different types of versions waxa kala baxay 114 oo Bible-ka waay hal Bible waxa jira oo la yiraahdo the Jerusalem Bible 77 buug ku jira waxa jira buug kale la yiraahdo the New International Bible waxa ku jira 73 kitaab waxa jira mid kale oo isticmaalaan oo la yiraahdo King James Version isagana wuxuu leeyahay 66 kitaab hadda waxaan aad sheegaysaan kitaabka quduska Bible-ka lama bedelin haye kan 77 buug leh kan 73 buug leh kan 66 buug leh kee aan la bedelin aad ka hadlaysaan idinka maanta su'aasha waa inaad soo jawaabtaan talabaad waxaad soo akhriseen kitaabka la yiraahdo Deuteronomy Ingiriisiga Deuteronomy lagu yiraahdo af Soomaaliga Bible-ka af Soomaaliga halkan aan ku haystaa internetka waxa jira kitaabka ay soo qaateen ay yiraahdo sharciga ku noqo mise ku noqoshada sharciga ee ku yaala kitaabka Bible-ka ay sheegaysaan waxa soo qaadeen aayada 4 suurada 4 aayada 2 waxa tiraadeen Ilaahay wuxuu yiri aan akhrino waatan soo akhri oo erayada maanta aan ku dhahay oo erayada aan idinku amrayo waxa ku darina erayada aan idinku amrayo waxa ku darina maaha kitaabka aan idin siiyay waxba ha ku darina maxaad dadka beenta ugu sheegaysaa isku xishooda yaa akhi Ilaahay ka cabsada talabaad eraygan aan maanta idinku dhahay cidna waxba yuu ku darin
waxba ayaanu ka dhimin erayda maxay waaye haddii aad in yar hoos tagtid suuradda waa 5 aayadda waa 12 muxuu dhahay soo akhri suuradda 5 miya 5 12 muxuu dhahay ilaahaygan aad sheegaysaan oo kitaabka qudus horta kitaab qudus bible-ka kitaab qudus maaha bible waa maxay maxaa lagu yiraahdaa Soomaaliga bible kitaab waan garanaynaa kitaab waaye haye kitaabka quduska haye kitaabkan quduska magacii sharciga markaa fiiriso 5 aayadda 12 dhowra maalinta sabtida ka bilow aayadda 7 ma soo bilowna aayadda 7 maxay leedahay aniga mooyaane ilaahayo kale waa inaanan lahayn aniga mahane aniga Allah aniga ilaahay aniga kaligiis kale ha caabudna ciisa ha caabudin rabbigeena ciisa soo xasan leedahay gabadh yahay ilaahay ka cabso wiilka shiine ilaahay ka cabso waxaan aad wadiin been waaye haddaad lacag ku qaadateena iska dhaafa lacagtan waad cunaysaa naar baad cunaysaa ilaahay ka cabsada oo diintiina xaqa ku soo noqda waxa aan lagu darayn uu ilaahay ku dhahay sharciga ku noqda 4 wuxuu isaga nagu amray ilaahay kale halhaanina laa ilaaha illa allah ciisana ilaahay hadhina qof kale ilaahay ka dhiganina ilaahaygaas qura waxba ku darina hada maanta intaad meesha YouTube ka tiraadeen Christian Somali TV aan ku jirna haye ciisa rabbigeena masiixi waay xageed ka keenteen intee ku qoran tahay kitaabkee ku qoran tahay bible-ka wuxuu ka bilaabayaa ingiriisiga haddaan ku sheego Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy the book of Joshua First King Second King the book of Ecclesiastes the book of Kings up to the book of Malachi 4 verse 6 that is 23,142 verses 929 chapters 39 books the Old Testament of the Bible is finished the New Testament Matthew, Mark, Luke, John, Acts of Apostles, the letter of Paul the Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, up to the book of Revelation 22:21, 9,999. Sagal boqol iyo sagashan iyo sagal aayadood kunkii waxa ka dhiman hal aayad kasoo bixiya meesha uu Ciisa dhahay aniga rabbigiini ah yacbuda mise sujuuda mise aniga ilaahay iga dhigta soo saara aayada dadkan ummadan Soomaali aad dhumin rabtaan iska daaya ta kale uu soo hadlay ninkan la yiraahdo shiine wuxuu dhahay aniga ma ogtahay aayadaas markaan arkay waxaan arkay Ciisa inuu naxariis badan yahay taasaan aniga diinta masiixiyiinta u galay sheekh waad dhunsantahay صح آيات يوحنا 8 إلى حل ناقبا لو كيني عيسى عليه السلام صح عيسى ناقبا لو كيني وحلا دهي ناقتن ويزيني ستي عيسى أذيك حكم صح waxaad ku xukuntaa arintii Muuse wuxuu yiri naagtan oo kale hal dhagaxeeyo markaas aad tiri naagtii ma ogtahay sug aan horta ereygiisa dhageysanay quduuska waxaan akhrinayaa Yuxana cutubkiisa 8 aayadaha 1 ilaa 11 oo macnaha aha sheeko ku qoran meeshaas oo sheekadaasna ay muslimiinta aaminsan yihiin gabar baa waxa lagu soo qabtay sheekadii camalaha gabar baa waxa lagu soo qabtay waxa la yiri way zinaysatay nimankii baa waxa uu keenay Ciise Masiix u keenan Ciise Masiix markii loo keenay waxay yiraahdeen nabi Muuse sharciyadiisa waxay dhigayaan in gabadhan noocan oo kale ah la dhagaxeeyo oo la dilo waa ma istaash inay noolaato adiga maxaa kale leedahay marka sheekada ay soo gaabiyaa qofka walba uu akhrisan karaa Yuxana cutubkiisa 8 aayadaha 1 ilaa 11 marka إلى وحيد كتاب قدوس كا وظاهر صح شرعية إلهنا وظاهر سهدا إذن صار شيئا وقدوس وحيد والشرع كسيدا ودقايا لكن متك إذا كم إذا أو أولي جدا بابين أو كاسي قبضنا لقى حكتورو ما كاسا قف أن دبابين إلى ما لها لقى حنتي أنت إسكال إجان بكلا يعني ماشي شرع له أود بوليه قفنا مفولين كرتو قفنا ما أرتي ما سمين كرتو قفنا ما dhihi kara anaan dambaabin dhagax ku tara qof walba uu dambaabay markaas waxa noqotay shaanee markay ka tageen kulli ayaa gabadhii wuxuu weydiiyay Ciise Masiix uu yiri aaway kuwi ku soo xukumay kana meeshan markaas ay tir way kala baxeen markaas wuxuu yiri anna ku dhalaacin maaye jid iska baxo ha dambaabin
meeshaas iyada ah ilaah wuxuu iga tusay ciise masiix inuu yahay naxariista inuu nimco la siiyey gabadhi nololna inuu siiyey waayo gacantiisa ayay ku jirtay nolol يوحنا 8 waad noo sheegtay 8 suurada 8 aayada 1 ilaa 13 waay markii naagta loo keenay maxay u keeneen yahuudi maxay ugu keeneen ciise naaga nabi ciise loo keenay naag baa nabi ciise loo keenay waxa la dhahay naagtan way zinaysatay sharciga muusana wuxuu yiri naagtan hal la dhagaxeeyo ilaa ma ay dhimato isagana intuu boodayo ayuu dhahay aniga ma ogtahay aayadaas markaan akhristay waxaan arkay ciise inuu naxariis badan yahay ciise meeshan waxaa loogu keenay naagta in horta la tijaabiyo sax ee yahuudi isaga tijaabiso waayo ciise wuxuu yiri aniga tawraadka maan iman inaan aniga bedelo Matthew 5:17 Don't think I came to spoil the laws, but I came to fulfill the law. The heavens and the earth will not go until the law is fulfilled. Aniga maanu iman inaan aniga sharcigii Muuse aan khariibo aan khadka ka bixiyo. Waxaanu imi inaan aniga culays saaro. Ardigan iyo samaawaadkana way dhamaan, laakiin ereyada Muuse ma dhamaanayaan. Matayos 5:17 ciise lagu dhahay naagtan way zinaysatay amriga Muuse waxa lagu amray in naagtan la dhagaxeeyo ilaa ma ay dhimato sax maxaad adiga ka leedahay aayada marka uu sii socdo nabi ciise hoos ayuu u foorsaday farta ayuu dhulka wax ku qoray su'aasha ugu horeysa muxuu dhulka ku qoray talabaad naag kaliya loo keenay hal naaga loo keenay sharciga Muuse maxay leedahay tasaddexaad wuxuu ku yiri nimankii keenay qofka ugu horeeya oo dambi lahayn horta ha ku bilaabo inuu dhagax ku dhufto shariicada saddexaad marka ay yahuudi ka soo bixi weeyeen ciise tawraadkii u soo bandhigay uu hadana foorsaday dhulku wax ku qoray hadana marka uu ciise soo kacay nimankii buu fiiriyay way tageen mid walba way kala carareen naagtii buu ku yiri kuwii adiga maanta meesha ku keenay oo dambigan baad gashay dhahay meeye waxay dhahday way carareen isagana ciise wuxuu yiri aniga kuma xukumaye orod muxuu u xukumi waayay sax wuxuu ugu xukumi waayay ta ugu horeysa pointka ugu horeysa naag kaligeed ma zinaysan karto ilaa laba ay noqdaan sax quraanka dhexdiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri marka aad adiga boqol ul ku dhufo naagtii zinaysata iyo ninkii zinaysa waa imisa laba amriga Muuse muxuu leeyahay arintan naagtan ciise loo keenay ku noqo amriga Muuse sharciga ku noqo suurada maxay ahayd 22 aayada waa 22 wuxuu dhahay ilaahay baa ku dhahay naagtii zinaysata iyo ninkii zinaysta labadoodaba hala dhagaxeeyo ilaa ma ay dhintaan kitaabka bible-ka ku qoran tahay quraanka maaha bible-kan aad idinka la boodboodaysaan waxba kama taqaanine diintan ay iska dhaafa waxan lacagtan aad cunaysaan dhaafa ilaahay ka xabsada dadkan aad dhuminaysaan Soomaali badan aad dhumiseen ilaahay ka xabsada Soomaaliya idinka la idin dhumiyay nimankan Shaania iyo Gaabo wax ay yaqaaniin ma jirto bible-ka ma yaqaaniin hadii yaqaaniin bible-ka ay isku dhahan anaka bible-ka anaka jidno hasoo codsadeen live aan galne dood caadi aan galno bible-ka aan ka hadalno iyo Ciise iyo waxa ay sheegayaan talabaad halkan hal naag bay keeneen ciise wuu foorsaday laba dhulka ku qoray markaad bible encyclopedia marka soo akhrisid laba ku qoray markay arkeen inuu isaga nin iyo naag inuu ku qoray dhulka ayay yahuudi arkeen wuxuu qoray way fahmeen marka waayo iyagana tawraadka way garanayaan yahuuda waxay arkeen ciise inuu arintooda ogaaday markaas hal bay keeneen imisa laga rabay laba talabaad wuxuu ku yiri qofkii aan dambi lahayn ha noqdo kii ugu horeeyay oo iyaga dhagaxaynaya kitaabka bible-ka sharciga ku noqo suurada 17
aayadda 7 waxay dhahday markii qof la qabto inuu zinaystay waxaa la rabaa dadkan soo qabtay mise soo arkay iyagoo zinaysanaya inay iyaga qofkii dembi gala qofkii arkay indhihiisa ku arkay inuu noqdo kii koobaad ee maaragtay dhagaxayn lahaa صح naagtan dadkii keenay ayaa horta dhagaxayn lahaa marka sidii ciise uu foorsaday haddana ciise arrin buu u qoray wuxuu ku qoray maxaad iigu keenteen idinka ugu horeeya inaad naagta dili lahaydeen markay saas arkeen way kala carareen sharciga ku noqo 17 suuradda 17 aayadda 7 ilaahay wuxuu yiri maanta aniga waxaan idinku amrayaa waxaan idin leeyahay dadkii dembi gala oo in la dilo la rabo dadkii arkay iyaga oo dembiga samaynaya iyaga ha ugu horeeyeen inay dilaan kitaabka xisaabta naag baa dembi samaysay muusa u tegay ilaahay wuxuu yidhi amarka isii ilaahay wuxuu ku yidhi muusa suuradda 15 aayadda 230 kitaabka xisaabta صح wuxuu ku dhahay muusa adiga ugu horeynaya inaad naagtaa dhagaxaysid waayo isagaa soo arkay markuu ciise foorarsaday dhulku ku qoray idinka ayaa ugu horeyn lahaa inaad naagtan dhagaxaysaan maxaad iigu keenteen waayo aniga ciise amarka ilaahay amarka tawraadka aniga waxaan imi inaan amarka tawraadka xoog saaro baybalkan way ku taalaa nin baa u yimi nabi ciise calayhi salaam wuxuu ku dhahay ciise maxaan sameeyaa aan janno gale صح maxaan sameeyaa aan janno galay suuradda 19 aayadda 17 ee Matayos ciise wuxuu yiri adiga tawraadka ma akhrisid tawraadka markaad akhrisid orad tawraadka soo akhriso markaad akhrisid aad ku amal fashid markaasaad jannada galaysaa tasaddexaad ciise wuu soo kacay wuxuu yiri anigana kuma xukumayo waayo wixii shaahidnimadii iyo wixii laga rabay ayaa laga waayay صح saasuu ilaahay subxaana wa tacaala annagaba diinta islaamka inta qof la dhagaxayn mise inta qof la dilin horta dadkii wax soo arkay shaahid in la helo shaahid in la helo waaye afar in la helo oo la dhaariyo magaca ilaahay subxaana wa tacaala marka idinka beenbeenta iska daaya kitaabka soo akhrista ta kale waxaad tirahdeen kitaabkan baybalka cid bedeshay ma jirto صح eefur yaa bedelay kitaabka baybalka nabi muuse calayhi salaatu wasalaam hal kitaaba la siiyey halka kitaab ee la siiyey wuxuu ahaa tawraat laakiin idinka waxaad ka dhigteen juz aad ka dhigteen hadda waxaan fiirinaynaa buugga yeremiya soo fiiri abo yeremiya waa kan 8 usoo akhri bible muxuu ka saabsan yahay bible waa kitaab ay dad ingiriisiga waxa lagu dhahaa bible af greekka waxa lagu dhahaa biblos af ingiriisiga waxa lagu dhahaa many books put together under one cover by man waa kitaabo badan oo bini'aadamka meel isku soo aruuriyeen bibleka bini'aadam isku soo aruuriyeen ilaahayna muxuu dhahay fawaylun ladina yaktubuuna alkitaaba biaydihim thumma yaquluuna hada min cindi illah suuratul baqara aayadda 79 marka ilaahay ku soo noqda beenbeentanaad wadiin iska dhaafa soo akhri bibleka been ma ku jiraa mise been kuma jiro aniga kuma la hadli doono aniga hadhowto ha oranina sheekh ibraahim iyo muslimka ayaa anaka farangeeni mise arrin been naga sheegay maya kitaabkaad aad wadatiin ayaa idinka shaahid idinka bixinaya akhri yeremiya buugga 8 aayadda 8 haye waxay dhahaysaa haddaba bal sidee baad u dhahdaan annaku xikmad baan leenahay oo rabbi sharcigiisana waana la jiraa sharciga rabbina wuuna la jiraa waa haysanaa tawraadka waa haysanaa laakiinse
mise qalinkii beenta ahaa qalinkii beenta ahaa ee kariniyadda kuwa wax qorqora ayaa been ka dhigay tawraadkii marka tawraadkan aad haysataan been waaye haddii aad wax ka haysaan soo dejiya إن شاء الله بإذن الله الكريم. ولا ليال ساء أركتين برونتي أول هراء لما أركي جرين سومالي قرن نيسو إن الدين الإسلام ككبح لكن قرني كان هذا أنجمنو رونتي سومالي بدنا على أركايا مرك إن شاء الله ساء باللون وإن شاء الله وحبذانا وكسي دبراعي دونا وحي سو شيغين نساء اي قرتين واوجد جوابي دونا انا كتابك بايبلك وحي كاخرتين انا كنت استمعالينا قرانك يا بايبلك يو كامسنين ولا ليال ان شاء الله فيديو كان هدا aragto si sheegare in sha Allah si you can u gaaro maxaan ka cusanaynaa videogan haduu gaaro sida u helno dood live to live Sheikh Ibrahim iyo kaba hadaa su'aal qabto hadaa dhiirigelinayso runtii nambaryaashan ayaana laga soo xiriiri doontaa insha Allah inta iyo kulanti dambe insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayranisiyo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khayr